walaalayaal waxaan isweydiiyaa meeqa saac ayaan ku isticmaalnaa wakhtigeenna waxyaalo maalayacni ah. meeqa saac ayaad akhrisaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadkii ama bishii? walaalayaal, dadka qaarkeen anigaan ka mid ahay, musxafkeenna wuu booraystay, waxaanu ku mashquulsannahay waxyaalo maalayacni ah. goormaa kugu dambaysay kitaabka ilaahay inaad la soo kala baxdid oo aad wakhti siisid? subaxii markaad soo toostid moobilkaadaad ku jarmaadaa mise ilaahay dikrigiisa ayaad bilowdaa? marka aad salaada ka baxdid ma waxaad markiiba gacanta la gashaa teleefonka oo aad baarta akhbaartii waxyaalihii soo dhacay, mise subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ayaad tiraahdaa? habeenkii markaad seexanaysid waxaa kugu dambeeyaad aragtid ma facebookba, ma internetba, ma akhbaarba, ma videoba? marka aad dadka la fadhidid oo aad mataqaanaa miiska fadhidid waxa aad ku mashquulsan tahay ee aad gacanta ku haysid ee aad la akhriysatid ma kombyuutarka, ma waxa weye ma teleefonka? walaalayaal, su-aalahaas oo dhan runtii dareen ayay igu abuureen. aniga waxaan sheegayo ka kow baan ahay. walaalayaal, isma dhaamee ilaahay subxaanahu wa tacaala haloo toobad keeno. walaalayaal, qur-aanka wallaahi waa raaxada nafta. qur-aanka la akhriyo oo ha lagu dadaalo, meel kale farxada ka raadinina, kitaabka ilaahay walaalayaal gacanta lagu hayo. saas darteed walaalkayga muslimka aw, haddaadan kitaabka akhrin karin dhegayso, qur-aanka ogow, wallaahi waa raaxada qalbiga. waa mataqaanaa waxaan kale oo aan farxadda ka raadinayna walaalayaal farxad ka heli mayno. bismi illaahi araxmaani araxiim. cama yatasaa'aluun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. ولا ليال ilaahay baan kugu dhaarshay wax ka macaan miyaa jira inay dhagahaada maqlaan, afkaadana akhriyo, qalbigaadana ku raaxaysto. runtii walaalayaal, waa xaqiiq jirta, dareen jira weeye. waxaan kaloo isweydiisaa, qur-aanka meeqa meer baa dhammaysay ilaa ramadaan laga gaaray, ilaa ramadaan laga joogo meeqa jeer ayaa dhammaysay? meeqa jeer ayaad wakhti siisay adigoon wax kale ku mashquulin? runtii maanta ujeedkayga ma ahayn inaan duubo, laakiin anigaba dareen baa i galay. su-aalahaas ayaa igu soo dhacay. qalbigayga wuxuu tabay meesha aan farxadda ka raadinayo, aan wax ka raadinayo inaysan jirin, laakiin kitaabka ilaahay ku jiro. runtii markaan la soo kala baxay, tabaaraka aladii biyadihi lmulku aan bilaabay, ilaa hadda farxadda aan dareemay ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala. saas darteed waxaan jeclaystay inaan farxaddaas idinla wadaago. walaalayaal, qur-aanka ha la ogaado, qur-aanka ha la ogaado, ha la dhegaysto, ha la akhriyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiina iyo dembiga waalidkiina ha dhaafo. walaalkiina sir cadceedo idin leh, qur-aanka ha la akhriyo. السلام عليكم ورحمة الله.